kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Hogaamiyaha jabhadda SSC oo beeniyay warar laga faafiyay go'aamo ka soo baxay shirkii xasiloonida loogu raadinayay magaalada Laascaanood iyo dawladda Mareykanka oo hub ku wareejisay dawladda federaalka ee Soomaaliya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo aad xiiso badan ayaad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka Soomaaliya. aanu ku bilownay Faysal Falagle oo ah gudoomiyaha jabhadda hubeysan ee SSC ayaa ka hadlay warar la isla dhexmarayay oo ahaa in Somaliland uu ku biiray xilli maleeshiyad hubeysan oo uu watay habeen hore ay Laascaanood gudaha u soo galeen. waxa uu sheegay in ciidankiisa uu tagay magaalada Laascaanood habeen hore ay qalad uu ka dhacay isla markaana ay dib uga soo saareen magaaladaasi. Faysal Falagle ayaa beeniyay in ciidankiisa ay hadda ay ku sugan yihiin ayna dib ugu laabteen xeriyihii ay ku sugnaayeen ee jabhadda SSC ee dhulka hawdka ah ee gobolka Sool. muddo 10 sano ka badan ayuu dagaal u dhaxeeyay jabhadda SSC iyo ciidanka Somaliland ee Faysal Falagle uu hogaamiyo isaga oo sheegay in dagaal aan waxaan ahayn aysan ku kala baxaynin Somaliland. ودوهاي هذه بعض هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال كودا ربنا كويدينه waxa weeye hadda xagee ku sugan tahay? الوسائل وشبداش وادير waxaan ku sugnaay fadhiisin kamida fadhiisimada jamhadda SSC. waayahay warar baa la saddex mariyay ilaa shalay Faysal waxa uu aaday Somaliland wararka sheegaya in Somaliland aad maxaa ka jira? البلاد هذا وأرنداس وعي هيسون ملايين عدوجا لدجا لمينه وأنا شاهينه مراها وكوري أرندا مريانا وحي حالان تنمين يان إلا سحارة مجرو بحالان تنمين يان يبغى وجه دائما ورمها اللوجستين لكن وعن كفما هاي إن يدتي نقول نقول عدوجا أرندا وحنا كمان كلامي waayahay mana dhici doonto nimankaana waxaan xabad ahayn ku kulmi mayno noloshay. waayahay hogaamiye waxa soo gasheen magaalada Laascaanood dad badan waxay isweydiinayaan hogaamiyuhu muxuu magaalada dhexdeeda soo sawray qorshaha koowaad ee magaalada u timaadeen muxuu ahaa bal dadka u faahfaahi. wuxuu ahaa dadka iyagu layn la laayay xasuuq dheer kadib waxay sameeyeen inay diidiyaan كان ديديان حسوق الله وهايو وجبهده SNM ay ku hayso dabadeedna way la dagaalameen maxay ahayd way iska xoreeyeen oo magaalada gudaheeda way ka qabsadeen jabhadda SNM si aanu u moral gelino oo inay xigi ka dambayso aanu u tusno oo inaan dagaalku iyaga kaligood ahayn aanu u muujino baanu u soo galay ujeedkaan u soo galayna kaas waxaa jira ciidamo aad wada socoteen oo runtii dadku siyaabo wan ay u dhigayaan oo runtii keentay kala shaki bal arinta ciidanka si dhow adigoo bulshada uga qancinaya maxay tahay? way jiraan maxay ahayd qayb ciidanka kamida oo istiraatiijiyadii la sameeyay ay wax ka khaldameen taasoo maxay ahayd aadanana khaldamo oo khaldamena uu yahay aadanaba uu khaldamo taasi way jirtay laakiin waxa inta dhaafisay waayahay maxay tahay fariinta ugu dambaysa ee shacabka gobolnimo doonka ah ee adiguna hogaanka aad u tahay aad u diraysaa fariinta ugu dambaysa aad u diraysaa maxay tahay? waxaan u dirayaa marka hore waxaan u tacsiyadeynayaa dhammaan dadkii shuhadaaga ahaa oo meesha ku dhintay waxaan leeyahay ilaahay janna firdawsa ha geeyo maxay ahayd ilaahay ha haleelsiiyo shuhadaagiisii waxaan uga dirayaa tacsibaan u dirayaa kuwii dhintayna ducadaasaan u dirayaa kuwa dhaawacmayna waxaan leeyahay ilaahay ha u boogadhayo dadka Rasuul iyo Siraad iyo Cayna waxaan leeyahay wada halganka waan idinku berber taaganahay maanta inuu ugu dhownahay inaynu jabhadda SNM aynu saarno waa saarteen waan idinku hambalyeynaya raganimada samayseen iyo sida magaaladii waan dhex maray magaalada anoo lugeynaya aniga ciidankayguba aad baan idinku hambalyeynayna asajamahadahan iyo ummadii Soomaaliyeed oo dhan baa idin hambalyeynaysa idin berber taagan hadaalina annana waa idin la joognaa
guddi ka kooban odayaal dhaqan oo maalmihii ugu dambeeyay ku shirayay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sida la soo warinayo waxa ay soo saareen go'aamo ka kooban 12 qodob. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beelaha dhulbahante iyo fiqashini ayaa waxa ay ugu baaqeen Somaliland inay isaga baxdo gobolka Sool. warmurtiyeedka ka soo baxay shirka beelahan ayaa waxaa tacsi loogu daray ugu horeyn dadkii ku dhintay rabshadihii ka dhacay magaalada Laascaanood 2 toddobaad ee la soo dhaafay. lambar 1 guddigu waxay u tacsiyeynayaan dadkii ku dhintay tacadiyadii ka dhacay magaalada kuwii ku dhaawacmay Ilaahay waxay uga baryayaan caafimaad iyo badqab. lambar 2 waxay guddigu cadeynaysaa in wixii khasaare ka dhacay magaalada naf iyo maalba uu mas'uul ka yahay maamulka Somaliland. lambar 3 in ay ka baxaan ciidamada Somaliland ee aan u dhalan deegaanka dhulbahante iyo fiqshini maadaama aysan ku imanin rabitaanka shacabka si loo helo nabadgelyo daris wanaag iyo wada noolaansho. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur ayaa safaaradda Mareykanka ay ku leedahay magaalada Muqdisho kaga wareegay hub ay ugu talagaleen ciidanka danab dowladda Mareykanka. safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Larry Andre ayaa munaasabada xil wareejinta hubkaasi iyo waliba agab ciidan iyo gaadiid ku wareejiyay wasiirka isagoo oo sheegay in ay tahay deeqdani mid ay ugu talagaleen in kooxaha argagixisada lagaga sifeeyo wadanka. wasiirka gaashaandhigga ayaa u mahadceliyay dowladda Mareykanka garab istaaga ay u muujiyeen ayna fariin u tahay dalalka kale ee Soomaaliya saaxiibka la wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay xoojinayay dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada Al-Shabaab iyadoo kooxda hadda laga xoreeyay deegaano badan oo ku yaala dalka sidoo kale waxa uu xoojiyay tayeynta iyo kor u qaadida awoodaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo xaqiiqdii muddadii dagaalkan khawaarij lagula jiray oo sanadada tirada badan ahaa ay noo ahaayeen garab taagan ayna maaragta caawinayeen ciidamada danab iyo guud ahaan dawladda Soomaaliya qaybo kala duwan ay caawinaad ka wadeen. agabkan maanta hubka ah maaragta saboortiga ah oo ciidamada qalab nooc kala duwan oo halkan yaala wuxuu message u yahay adduunka in Soomaaliya ay xaaladeedii wax badan iska bedeleen. wuxuu message u yahay in Soomaaliya ay hor u dhaqaaqday. wuxuu message u yahay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed in wax walba oo agab ah lagu aamini karo. inta aan ku kulmayno barnaamijkan lamida waxaan kaga tageynaa sidaa iyo nabadgelyo.